daruuraha dambaska ee ka dhashay fulkeenada ka qaraxday deegaanka Hayliguubi ee gobolka Canfarta ee waqooyi bari dalka Itoobiya maalintii daraad ayaa dul hogganaya magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta dalal ku yaala bariga dhexe iyo koonfurta Aasiya ayaa qaybo kamida duulimaadyadii diyaaradaha hakad la geliyay meesha uu saameynta ugu daran uu ku yeeshay dambaskani waxa weeye jasiirad la mooda Carabta sida uu sheegay Ibrahim Al-Jarwan oo ah gudoomiyaha hay'adda hawada sare ee Imaaraadka Carabta dambaskani cirka isku shareeray waxa laga digay halis caafimaad oo dadka uu ku yeelan karo iyo saameynta deegaanka dawladda Itoobiya waxay uga digtay dadka ku nool deegaanka Canfarta inay u dhawaadaan halka uu ka qarxay fulkaanuhu magaalada New Delhi ee caasimadda dalka Hindiya ayaa dambaskani uu saameyn ku yeeshay waxa kale oo uu ku baahay koonfurta dalka Pakistan iyadoo maalintii shalay waqooyiga dalkaasi lagu arkay daruuro dambasa hawada magaalada dekada ee Karachi ku yaala garoon diyaaradeed oo caalami ah ayaa waxa lagu arkay daruuro dul hogganaya saynis yahanadu waxay soo jeediyeen in baaritaan lagu sameeyo dooxada Rift Valley oo uu ku yaalo deegaanka Hayliguubi oo fulkaanuhu uu ka qarxayay muddo kumanaan sanadooda iyadoo la soo jeediyay in si qoto dheer loo baadho awoodda fulkeenadani ay leedahay ilaa hadda dawladda Itoobiya kama hadal khasaaraha uu sababay fulkaanahani oo la filan karo inuu baaxad yeelan karo marka leegay jooga uu cirka u kacay oo ah 14 kiiloomitir isla markaasina daruuraha dambaska ee ka dhashay fulkaanahaasi ay gaadheen ilaa magaalada New Delhi ee wadanka Hindiya shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka internetka bilaa xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25% hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay